السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما توي تاريخ تاي لبدا بشا لبي لاتنك بشا لبدا كوني لبي لباتنك ayaa waxaan isku dayi doonaa inaan qaadano cashirka koobaad ee axmaariga oo hadda insha Allah laga bilaabo joogto inoo ahaan doona kooni waa xarfi axmaariga xarfa axmaariga markaan barana ka bacdi ayaan axmaarigi kale u gudageli doonaa channelku waa channel cusub subscribe-ta like-ta iyo share-ta midna ayaan laga iloobin cashiraantu joogtay noqon doonaan insha Allah cashiraantu joogto ayay noqon doonaan cashiraanti joogta ayay noogu socon doonaan kani wuxuu noqon doonaa cashirka koobaad aynu qaadano marka waan bilaabaynaa insha Allah la socod wanaagsan qofkii intuuna cashirka bilaabin haddii aad jeceshahay inaad ka barato YouTube channelka cilmiga maanta waxaad samaynaysaa buug baad soo qaadanaysaa ama laba buug iyo qalin cashirka aynu soo dhigno waad qoraysaa haddii aad cashirka koobaad fahanto axmaarigu waa luuqadda keliyata ee hal qaab loogu dhawaaqo shaqalkeedii shiibanaheedii waxeeda way sidataa kaliya way qalqaloocdaa ha uga tegin waxaan adduunka dhib badnayn ma jiro haddana waa luuqadda keliyata ee ugu fudud haddii aad haahuudeeda barato ama 34 xaraf ay ka kooban tahay haddii aad barato waxaad awoodaa inaad qorto akhrido kaliya waxaad u baahanaysaa ku hadal iyo cashiro kale oo intaa dheeriya intaana insha Allah waad naga heli doontaa hadda idinku raaliya waxaan insha Allah bilaabin doonaa casharka amaranya qaanqwa af Soomaali ahaan waxay noqonaysaa luqadda axmaariga halka waxay noogu qoran ya amaranya fidaloj xarfaha af axmaariga ya amaranya fidaloj amaranya qaanqwa iyo amaranya fidaloj hadda markii aad barato xarfaha ayaad insha Allah adaa qori doona akhri doonana hadda waxaad isku dayi doontaa inaan xarafka koobaad qaadano xarafka koobaad axmaariga xarafkaasi inaga af Soomaali ahaan waa ha kan ku xiga waa la kan ku xigana waa ma marka ha iyo la iyo ma ayaan maanta qaadan doonaa hadani waa yudi ingiriiska ama udi ama yudi aad garanaysay ayuunbaa loogu dhawaaqayaa ayuunbaa qaabkan loo qorayaa marka koobaad aad qorayso qaabkan ayaad u qoraysaa saasaa loo qoraa hada qaabkaas ayaad u qoraysaa talabaad saanaad u qoraysaa uudaan baad wadaysaa insha Allah sidoo kale waxay noqotay laada line-ka buugu markuu saa yahay ka kale sidaa yahay ayaad halkan ka bilaabaysaa halkaasaad geynaysaa waa la qaabka maada iyadana loo qorayo insha Allah maadana waxaad u qoraysaa maadii caadiga ahayd ee Soomaaliga ahayd ayaad iska qoranaysaa maadaadii Soomaaliga ahayd markaad qorato koow xaganaad kaga xidhaysaa koow talabaadna xaganaad kaga xidhaysaa haddii aan mar labaad ku celiyo ma Soomaaliya ayaad qoranaysaa maadaad qoratay koow xagaasaad kaga xidhaysaa marka labaadna godkan yar baad xidhaysaa maadii koobaad saasaad ku qoratay insha Allah saasaynu ku sii wadi doonaa cashirka hadda waan bilaabaynaa sharaxaadiisa xarafaha sida loo qoro waan tusnay insha Allah waxaan filaynaa inaad wixii inta ka dambeeya aad cashirka la socon doonto cashirku joogtu noqon doona ka faa'iideysi wacan haddii aad u baahato sidoo kale Telegram baa jira oo cilmiga maanta waad nala soo xiriiri kartaa cashiraanta oo toos ayaan ku siin doonaa iyadoo khidmada baad iska bixinaysaa insha Allah haddii aad Itoobiya joogtana waad baran kartaa haddaad Soomaaliya Somaliland joogto waad baran kartaa labadaba waad baran kartaa labadaba waanu awoodnaa inaanu insha Allah aanu kaaga faa'iideyno marka cashirkan ayaan bilaabi doonaa amaranya qaanqwa waa luqadda axmaariga amaranya fidaloj xarfaha af axmaariga xarafka koobaad wuxuu noqonayaa ha hu hi ha he hi ho baa lagu dhawaaqaya qaabkee lagu dhawaaqaya oo fiirso ha hu hi ha he hi ho midii waxay ka kooban tahay 7 xabo waxaa la rabaa inaad tan ka dhigato lambar 1 tanna waxaad ka dhiganaysaa lambar 2 tanna waxaad ka dhiganaysaa 3 tanna waxaad ka dhiganaysaa 4 tan waxaad ka dhiganaysaa 5 tanna 6 tanna 7 si haddii imika tusaale ahaan aan ku idhaahdo lambar 5 hadeeda qor waxaad qoraysaa he
haddii la yidhaahdo ha'da lambar labaad qor waa huu mid kale waan kugu bishaaraynayaa dhammaanta koobaad oo dhan waxaa loogu dhawaaqaa ha ama la ama ma ta labaad oo dhan waa uu ta saddexaad waa i ta afraad waa a ta shanaad waa e ta lixaad waa i ta toddobaad gebigoodu waa oo haye hal mar aan ku celina waa ha huu hi ha hee hi hoo la baan bilaabayaa la lu li la le li lo la lu li la le li lo haye xarafka saddexaad baan bilaabi doonaa insha allah waa ma mu mi ma me mi mo ma mu mi ma me mi mo waxaa jirta arrin kale oo na weli idinla wadaagin insha allah waxaa jirta xarfahan waxaa la socdaa hada waxaa la socda u i a e i oo baa la socotaa marka waxaad samayn doontaa inta ayaad si yaroo gaara u xifdiyi doontaa fallaadha waxaad xifdiyeysaa waa ta koobaad xarafku waa isbebedelaa ka labaad wuxuu noqonayaa u ka saddexaadna i ka afraadna a ka shanaad e ka lixaad waa i ka toddobaad halku oo noqonayo intaa haddii aad xifdido oo ah u i a e i oo intaa haddii aad xifdido dhammaan xarfaha axmaariga oo dhan qaabkaa ayaa loogu dhawaaqaa fadlan si gaara intaa u xifdi intaa markii aad xifdido tusaale ahaan imika fayri halkan maxaa ku yaala u halkanna maxaa ku taalla i halkanna maxaa ku taalla a halkanna maxaa ku taalla e halkanna maxaa ku taalla i halkanna maxaa ku taalla oo kaliya xarafkan ba isbedelaya tusaale la wiimo la markaa tiraahdo maxaad tan odhanaysaa luu baad odhanaysaa tanna liin baad raacin laa baad tanna raacinaysaa tanna maxaad raacinaysaa le tanna li tanna lo maadii waa sidii oo kale u fiirso waa ma haye talabaad maxay ahayd muu bay ahayd ta saddexaadna mii bay ahayd ta afraadna waa maa ta shanaadna waa mee ta lixaadna waa mi ta toddobaadna waa moo kani wuxuu noqon doonaa cashirka koobaad buu noqon doonaa cashirka koobaade haahuuda xarfaha axmaariga bilowga halkani waa cilmiga maanta official tube waxaad kala socon kartaa cashirada axmaariga oo bilow ah kuwa dhexdhexaad iyo kuwa saraba insha allah waxaad isku dayi doontaa inaad ka faa'iidaysato luuqadan ma tahay mid jooga Soomaaliya ama Somaliland Ethiopia ma dhacdaa marmarka qaar inaad xaalad caafimaad u tagto intii adiga translator ama turjumaan lacag lagaaga qaadan lahaa bara luuqadaada oo jooga gurigaaga goobtaada shaqo iyo meesha aad ku sugan tahay sidoo kale insha allah ardayda iskuulada dhigata Ethiopiaanka ama dadka jaamacadaha dhigta waxaan isku dayi doonaa intay nala soo xiriiraan inaanu ka caawino imtixaanada axmaariga luuqadan axmaariga insha allah waxaan kaaga caawin doonaa sida ay doonto waxay u socon doontaa si joogto ah casharaanta waan soo gelin doonaa Telegram baa jira WhatsApp baa jira aan insha allah idinla soo wadaagi doono kuwaas ayaad nagala soo xiriiri doontaan cashirku maanta inta ayuu noogu eegyahay cashirkuna halka ayuu ka sii socon doonaa fadlan ogsoonow inaad intaa yar xifdido aad laba buugna qaadato mid aad ku feegaarto iyo mid aad cashirka ku qorato kow markaad cashirka qorayso la buugti laymankii markay sidaa yihiin halka markaad ha ku qorto page-ka koobaad waxaad u deynaysaa ha ka labaad baad tagaysaa xaashida rogaysaa la baad u deynaysaa ka saddexaad baad tagaysaa ma baad u deynaysaa saddex page waa inaad feegaartaa marka saddex page feegaarto insha allah waxaan filaynaa inaad si fiican u fahmi doonto wixii aad fahmi weydo insha allah anaga nala soo xiriiri doontaa saasiyo maalin wanaagsan